السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهي دمانتين يا آدم إدين سلام يا ما شاء الله تبارك الله من الله لي مش أجوكتان با intiina subaxda u tahay subax wanaagsan intiina ay habeenka u tahay habeen wanaagsan dhammaantiin soo wada dhawaada maasha allah tabaaraka allah maxaa maanta miiska noo saaran maanta miiska waxaa noo saaran titleka sida aa ku aragtaanba maasha allah kids with ADHD ama dabeecadaha aa ku ogaan karto ilmahaaga inuu ADHD leeyahay ee astaamaha hore uga soo hadlay iyo sida lagu caawini lahaaba اللهم صل على محمد exactly image kan ama picture kan waxaan kasoo qaatay buug jira ma sha Allah tabaaraka Allah dhaqaatiir fara badan ay iskugu tagtay oo ay qortay ayaan kasoo qaatay maxaa la dhahaa sawirkan ma sha Allah haddaba hooyo walba oo Soomaaliyeed ma sha Allah waxaan rabaa inaan kula wadaago haddii ilmahaagu dabeecadahan uu leeyahay ay ku jirto qaybo ka mid ah ADHD-da ay ku jirto mar walba waxaa leedahay mataqaanaa rajo aa ku caawiso iyo waxyaabo uu baran karo maasha allah heerba heer ay caruurta ku kala duwan tahay muddo ani idinka kala maqnayn su-aalo badan oo ii yaala ayaa mataqaanaa maasha allah tabaaraka allah qaarkood aan rabaa inaan soo qaato ma noqon karaa labada dhinacba cunugu inuu dhaqdhaqaaq badan yahay oo meel walba uu korayo meel walba uu ka degayo behaviorkiisa dhaqdhaqaaqiisa uu badan yahay ADHD ma noqon karaa qodobka koowaad yes but dhaqdhaqaaqaas keliya ma aha sometimes isagoosan cunugu uusan dhaqdhaqaaqaynin oo uusan ordaynin oo uusan cararaynin ayaa haddana mataqaanaa waxaa suurtagal ka ah in uu lahaado poor concentration ama waxa loo yaqaano in uu maskaxdiisa soo xaadiriyo si uu macalinka ama qofka la hadlaayo uu u dhageysto oo uu qaato orderka ama mataqaanaa waxa loo diraayo ma yahay ilmahaaga mid kala hilmaama waxa loo diro oo aan wixii loo diray si toos aan usoo wada dhamaystiri karin of course ilmo yaroo dhan waxaa laga yaabaa dabeecadahaas ilmo fara badan oo aan lahayn ADHD-ga in laga helo ayaa suurtagal ah laakiin hadda waxaan aadaynaa dhinaca schoolinka ilmahaaga difficulty ma ku haystaa samaynta homeworka ilmahaaga dhibaato ma ku haystaa akhrinta buwaagtiisa ilmahaaga mas-uuliyadiisa waxyaabaha buwaagtiisa qalimaantiisa wixiisa ah ma kala ogyahay oo si toosa ma usoo wada celiyaa haddaba markaan dhaho Soomaali ahaan ma kala ogyahay I'm not talking about caqli waxyar waxaan rabaa inaan kor istaago caqliga qofka bilo-aadmiga uu leeyahay iyo duruufaha ilmahan haysta oo ah ADHD-ga ama autism-ka ah although my topic today uu yahay only ADHD arrimo kala duwan waay waxaa laga yaabaa ilmahan ADHD-ga leh inuu yahay ruux very wise ah oo aad iyo aad u caqli badan inuu yahay laakiin ciladan gooni ahaan ayay u haysataa oo dabeecad ahaan ayay u haysataa marka behavior ahaan in loo baro oo waxyaabaha qaarkood uu ka gudbo ayaa mataqaanaa muhiimadda ay tahay haye markii aan ku noqdo marka labadii qaybood ilmaha qaar dhaqso ayaa mataqaanaa la gartaa oo ah ilmaha ama mataqaanaa speech delay gale oo dhaqso hadalkooda uu soo daaho oo aan dhaqso hadlin ilmaha aan mataqaanaa aan fariisanin oo socodkooda uu aad u fara badan yahay oo hyper active ah oo meel walba galaya meel walba ku soconaya especially all toddler oo dhan mataqaanaa waa ordaan ilmaha markay 2 sano jiraan iyo orodkooda iyo dhaqdhaqaaqooda waa badan yahay that's normal laakiin cunuga markuu heer isku soo gaaro ilaa 3 sano ilaa 4 sano in uu saacado uu ciyaaro iyo wixiisa inay kala xadidan yihiin ayaa la rabaa marka ma yahay cunugaaga cunug mataqaanaa dhaqdhaqaaqiisa uu zaa'id u badan yahay taas astaan ka mid ah waaye dhaqsaana la gartaa kuwaas already levelka way helaan iskuulaadka caawinaada ay dhaqso ka helaan laakiin waxaa jiro ilmo sneaky ah oo ku dhex dhumo mataqaanaa bulshada ku dhex dhumo waqti dambena la ogaado ama aan jaanis loo helinba inaan la ogaanin oo hadhowti noloshooda ee caqabad ay ku noqoto so ma aha laysinnimo keliya ma aha ilmahan waxaan ay u sameynayaan laakiin concentrationkoodii ayaa buur ah oo wixii loo diray oo dhan maskaxdooda hal mar ma wada qaban karto oo waxa ay u sheegaysid oo dhan hal mar ma wada sameyn kara waxaa ku adag dadkaas marka اللهم صل على محمد waxaa ku adag
follow the rules in ay raacaan wixii loo diray inay raacaan ama 3 steps waxa la dhaho 3 steps in ay sameeyaan 3 steps maxaan ka wadaa kasoo qaad oo kale tusaale ahaan haddii ay ilmahaas maclimadiisa ay tiraahdo waa istaagaynaa waan gacmo dhaqanaynaa gacmaha iska tirtiraynaa waa 3 shay markii hore waxaa la amray istaag second waxaa la amray maxaa la dhahaa gacmaha dhaqo tii saddexaad waxaa la amray gacmaha tirtiro marka waxaa laga yaabaa isaga in uu cunugaas ay dhaqso maskaxdiisa ay qabato ama istaagtii hore ama mataqaanaa gacmaha dhaqanaynaadii inay mataqaanaa uu maqlo marka istaagii hadhowtii isaga inuu meel kale iska aada ayaa suurtagal ah ama mataqaanaa gacmihii markuu dhaqo inuusan tirtirina suurtagal ah iska dhaqaaqo soo marka see lagu caawini karaa problemkii aragnay see lagu caawini karaa waxyaabaha ku caawini kartid waxay tahay in aan loola hadlin like far away place inaadan kala hadlin oo mar walba asaga individual ilmaha markaa ku aragtid inuu difficulty haysto wax maqalka walaalaha ilmaha yaryar haysto dhammaantiin yaa sidka hore soo fariista ilmo yar oo walbo ayaa mataqaanaa dabeecadana u isticmaali kartaa oo ina kaa caawinaysaa marka aa ilmaha si common oo la hadlaysid oo aa leedahay waryaa kaalaya fariista marka aa leedahay ilmaha noocaana uma shaqeeyo wuxuu u baahan yahay isaga goonidiisa intaa gacanta soo qabatid inaad tiraahid fariiso individual gooni ahaan inaa ula hadashid fariiso adigoo markaas soo xaadirinaya indhihiisa iyo qalbadiisa indhahaaga hortooda kusoo xaadirinaya in aa 2 jeer ama 3 jeer aad tiraahdo fariiso ha istaagin intaan cuntada kaaga keenayo you gotta sit markaa kasii dhaqaaqaysa haddana waa inaa eriga ku celisaa waa inaa miiskaaga fadhidaa marka aad jikada tagto haddana waa inaa ku celisaa waa inaa miiskaaga fadhidaa markaas ayaa waxaa laga yaabaa 3daas jeer dhagahana malaca 3daas jeer oo ay ku celisay waxa laga yaabaa mid kamid ah markaas inuu dhaho okay I suppose sit hadda waxa laga rabaa inaan fariisto oo uu keeno mataqaanaa fariisashadii inuu keeno oo uu soo xasilo ayaa mataqaanaa suurtagal ah waxyaabaha yaryar ay u baahan yihiin waxay tahay oo ay aad iyo aad ugu liitaan waxay ku liitaan organize-ka ayay ku liitaan in ay wax mataqaanaa isku organize gareeyaan I mean in ay like ay waxyaabaha mataqaanaa in ay ka dhigaan organize inay ka dhigaan organize-ka of Soomaali iyo goy walaalahay subxaanallah inay maxaa la dhahaa wax isku hagaajiyaan oo mataqaanaa bugaagtoodii qalimaantoodii waxoodii inay isku hagaajisto dharkiisii inuu isku hagaajisto kabihiisii inuu isku hagaajisto timekii inuu isku hagaajisto marka dabeecaddan ma ka hari doontaa dabeecaddan waxaa laga yaabaa dad fara badan inay la socoto marka watch out xataa haddii aa qof weyn tahay oo dabeecadahan ay wax kaaga jiraan aad tahay timekaaga aadan hagaajin karin haddii aadan hagaajin karin maxaa la dhahaa wax fara badan oo aad rabto saa u rabto haddii aadan u hagaajin karin oo ay dabeecad ku tahay dabeecad ay ku noqoto iyada laftirkeeda waxaa weeyaan something is going on marka waa qeyb ka mid ah unorganized inuu qofka noqdo dabeecaddan ADHD-da ayaa iska leh oo lagu yaqaanaa inuu very unorganized u noqdo ama dadka islaabiga loo yaqaano oo maxaa la dhahaa aan waxsaas u hagaajinin like guriga oo kaleeto waxay rabaan ay ku tuuraan maxaa la dhahaa meesha ay joogaanba ma aha dad isku toosan how would I say I don't know ma aha dad isku toosan oo mataqaanaa wixoodii si toos u hagaajisan kara ma aha bulshada dhibaato badan ay kala kulmaan I'm sure bulshada Soomaaliyeed inay dhibaato badan oo mataqaanaa aysan keensanin inay aad ay ogala kulmaan sababtoo think about it haddii uu qofkii mataqaanaa wixii loogu talagalay dhan uusan kasoo bixi karin abilityna ay ka tahay oo asagii kas uusan u sameyneynin waa arrin adag arrin aad iyo aad u adag waay walaalahay maxaa la dhahaa loona xisaabinayo oo qofkii lagu xisaabinayo qof capable ah oo wax walba sameyn kara lagu xisaabinayo laakiin awoodiisii aysan dhammayn caqligiisina uusan maqnayn waa qadar raxmaan in markaa fiirisid ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabo badan oo siyaabo kala duwan oo annaga aan ku tadaburno ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu noo abuuray oo uu noo sameeyey oo kala duwanaansho leh oo aad iyo aad u kala duwan oo mataqaanaa ilaahay makhluuqiisa lama yaabi karno marka laakiin waxaa loo baahan yahay inaan ruux walba ilaahay sidii uu u abuuray
aan mataqaanaa aan ugu xamdino after thatna wixii aan u qaban karno ee ka hari kara ama la bari karo in la baro wixii uusan qofkaas uusan baran karinna in way u shaqaysa la helo wax walba wuxuu leeyahay way u shaqaysa ayuu leeyahay ya maasha allah tabaaraka allah marka haddii uusan u shaqaynaynin cunugan in la siiyo markaan hadalkayga kusoo celiyo 3 steps in la siiyo oo direction 3 steps ah inuu follow gareeyo ee ku adkaato ina af Soomaali ku hadla aad iyo aad aan u jeclahay walaalahay laakiin I don't know maxay ahayto aad iyo aad haddii aan kelmado kale aan soo dhexgeliyo iga raali ahaada insha allah biidni illahi alkariim waa isku dayayaa inaan mataqaanaa mar labaad frayskii aan dhahay aan ku celiyo especially markaan hadalka boobsiinayo maadaama aan ahay multi language luqada kale way iga soo maxaa la dhahaa dhexgelaysaa but I'm not intending in aan mataqaanaa aan luqad kale inaan ku hadlo waxaan rabaa inaan af Soomaali buuxa aan ku hadlo waxaan idin leeyahay maasha allah tabaaraka allah marka aan ku noqdo marka waxa weeyaan wax walba waxaa suurtagal ah way ayuu leeyahay haddii uu qofka tusaale idin siinaya walaalaha cagaha aan ka socon karin oo cagahooda mataqaanaa aysan dhamaystirnayn ma aha inayna socon karin haddii loo helo fiiri waa way haddii aan walaalahay Soomaaliya ku nool oo aan cagaha ka socon karin ilaahay subxaanahu wa tacaala waqti unba ilaahay na gaarsiin doonaa in aan facilitygaas haddii aan ummadda Soomaalida aan helno but hadda wadamadan aan ku noolnahay ruux walba wuu socdaa midka cagaha ka go'an wuu socdaa wheelchairkiisu ku socdaa waxaa loo sameeyey wheelchairkii inuu ku socdo oo meesha uu rabay uu ku gaaro gaarigiina waxaa loo sameeyey qaab uu u wadi karo asagoo lugta ka go'an asagoo labada lugood ka go'an ayaa mataqaanaa loo sameeyey haddana mar ahaantaas waxaa loo sameeyey dukaan walba waa aragtaan iyo meel walba office walba oo la galayo meelo qaasa oo dadka cagaha la ay ka go'an marka waa facility loo diyaariyey waaye asaga cagaha waa la yahay laakiin la'aantii cagaha uu la'aa waxba kama istaab garaynayso waxba kama joojinayso bulshadii wuxuu la qabsan karaa soo marka ilmaha ADHD-da leh oo programkaygu uu ahaa maanta aan ka hadlayay haddii la barto waxa ay u baahan yihiin noloshooda way soconaysaa wax qurux badan bay gaarayaan future-kooda gaarayaan dadka ayay la noolaanayaan qaab lagu fahmo marka waxaa loo baahan yahay waalidka ayaa mas'uuliyaddan iska leh in uu mataqaanaa ilmihii uu soo gaarsiiyo qaabkii uu bulshada uu oola dhaqmi lahaa is okay haddii uusan khalqiisa haddii ay sidan tahay what we can do that is the su-aasha mataqaanaa meesha taalo oo aan rabo inaan isku encourage garayno actually walaalahayga ilmaha ADHD-da haysta ilmaha autism-ka haysta any kind of mataqaanaa difficulty ama different ability ilmaha sidii loogu talagalay ma dhihi karo qof walba ilaahay subxaanahu wa tacaala si ugu talagalay kelmadan ma jecli kelmad ka qurux badan haddaa ii haysaan walaalahay insha allah commentiga iigu soo dhiga kolley Soomaali haddii la dhaho naafo haddii la dhaho little bit ani waxay iila muuqataa negative ayay iila muuqataa ilmahan naafo ma aha laakiin I don't know disability wax kelmad ku aadan ama mataqaanaa aan exactly af Soomaali ahaan aan ku dhaho ma garanayo biidni illaahi baari ila soo wadaaga biidni illaahi baari kulley ilmaha caawinaada qaaska u baahan taas aniga ila qurux badnaatay kelmad kale oo ka qurux badan hadday jirto oo positive ah oo qalbiga qofka bini'aadmiga hagaajinaysa oo aan negative ahayn maasha allah igu soo caawina igu soo dira maxaa la dhahaa commentiga igu soo dira dhammaantiin xoogaa ayaantan waa yaro mashquulay laakiin mashquulkaygu wuu badan yahay that won't stop mataqaanaa waxyaabihii aan idinla wadaagi jiray بإذن الله باري walaalahayga oo janaalka iigu xiran ama quruxda ama caafimaadka ku xiran insha Allah بإذن الله الكريم waan waxyaabo waan idin soo hagaajin doonaa laakiin muhiimadeyda iyo importantiga waxa ii ah mataqaanaa hadda waqtigan aan ku jiro hal hooyana hadda watee in mataqaanaa cajaladahan aan sameynayo ay caawiso ama gabar Soomaaliyeed oo ilmo yar oo Soomaaliyeed struggling la maraysa ama school ha ahaato ama ha ahaato ilmaha special need ka ha ahaado oo problem la maray inaan hal ka qaado maxaa la yiraahdaa kurba aan ka qaado that's what I'm intending to do insha Allah biidni Illaahi alkariim dhamaantiin soo dhawaada walaalahay waa idin jeclahay ummadayda Soomaaliyeed Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin barakeeyo meel alaaliyo meesha aad joogtaanba salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh